natural healer for men tana waxay ka kooban tahay 13 geed waa dabiici arrimahaas aad u fara badan ayay daaweysaa laakiin haddaan soo qaado kuwa ugu caansan ay raggu u baahan yihiin inay daawo u qaataan waxaa ka mid ah xanuunka la dhahayo varicocele ee Soomaalidu galo u taqaano xagga xininta ku dhaca xanuunka la dhahayo premature ejaculation oo raggu ay biyaha soo degdegayaan xanuunka la dhahayo erectile dysfunction oo himidyarida ah oo ninka dareenka uu ka yaraado ama ka badhinto xanuunka la dhahayo urinary tract infection oo infectionka kaadi mareenka ah iyo kan kiliyaha iyo waxaas oo dhan inuu qofka infection ka safeeyo iyo xagga ogxaanta ninka ragga ah inuu dhabar adeegiisa awood siyaadiyo ay shahwada ku soo baxayso iyo inuu shahwada u kordhiyo shahwadana tayeeyo daawadan waxay kala subisaa wixii bacteria ay caloosha ka safeysaa ninka ragga difaaciisa jirka aan kor bay u qaadaa wax dhibaato ah ama saameynaa side effects ma laha waa 100% dabiici weeye daawadan raggu waxay isticmaalaan 6 bilood ilaa 8 bilood bay isticmaalaan oo wax side effect ma laha si tartiib ah ayay ku nafaqeynaysaa kuna daaweynaysaa daawadana dumarka ayaa loogu talagalay intaas oo arrimo ayay dumarka ka daaweysaa waxtarna u leedahay laakiin haddaan soo koobo arrimaha dumarka inta badan ay ka wadaan waxa weeye xagga ogxaanta dumarka ayuu xoojiyaa wuxuu kaloo suubiyaa infectionka kaadi mareenka dumarka ayuu ka safeeyaa iyo kan tuubooyinkaba wuxuu kaloo suubiyaa gabadha dhiiggeeda hadduu ka maqan yahay caadada wuu u soo celiyaa wuu nasaxaa dhiiggeeda wuxuu kaloo suubiyaa himada gabadha hadday dhacsan tahayna kor buu u qaadaa wuxuu kaloo suubiyaa wixii infection oo dhan oo dumarka ku dhaca intiisa badan wuu ka daaweeyaa daawadan waa daawo dabiici ka kooban 11 geed runtii arrimo badan oo dumarka ay ka cawdaan ayuu daawo u yahay waa daawo dumar badan alxamdulillah ilaahay awlaad ugu sababay waa daawo dumar badan iyagoo dhiigoodii muddo ka maqnaa qaar sanado oo dhiigii ugu soo celiyay ilaahay waa daawo dumar infection muddo mataqaana uu hayay oo daawooyin badan soo isticmaalo oo ilaahay infection uga daaweeyay lama soo koobi karo daawada anfaceeda dhowr sano hadda gadeynayada iyo tan ragaba waa daawo dabiici wax dhibaato ah ama saameyn qofka ku lahayn oo si tartiib u nafaqeynayso una daaweynayso hadda gabadhu isticmaalayso ogxaanta iyo arrimaha dhalmada 6 bilood bay isticmaalaysaa bilbil bay u iibsanaysaa sababtay bilbil u iibsanayso waxa weeye haday bil isticmaasho oo ur qaado daawada way joojinaysaa oo inay khasaarto ma doonayno hadday u isticmaalayso infection 4 bilood ayay isticmaalaysaa hadduu infectionkana waxyaalo kala wato sida cuncun iyo dhacana وجوين يكون استجوت أيان قدرنا ويفافهنا إلى صحريرة السلام عليكم ورحمة الله داوين كان وهول قل رجع يدمرك من وحوي رجع يا استمعاليا وأمريكان داوين كان وزارة عافمات كأمريكان كأيا أنسحسي ترجو waxaa lagu talagalay xanuunka ay raggu biyaha soo degdegayaan 10 daqiiqo ka hor intuu xaaska u tagin ayuu marinayaa xubin taranka afka hore inta dhexe tan dumarkana 5 daqiiqo ka hor ayay isticmaalaysaa intay xaajigeeda u tagin ay waxay marinaysaa xubinta taranka oo himadeed ayuu kor u qaadaya waa daawooyin gargaar degdeg ah oo howlgal aweeye oo wax dhibaato lahayn ee FDA-da wasaaradda caafimaadka Mareykanka ansixisay ku soo dhawaada insha Allah jumla iyo tafaariiq. Assalamu alaykum wa rahmatullah.